السلام عليكم أصحابتي جنالكي كحرن أصحابتي سيتهين سيكو بردين سيكو هرقشين وإذا سلام يا أصحابتي إذا سلام قالي هودين الزومرين يا ملك استعدوني ذيك جوكتان أصحابتو حقيقي بريني إي وناكسناتو مالك إذن وناكسناتو هبينك إذن وناكسناتو إنت حنونسن إله عافيو أصحابتو كوريا رأيقا حنونسن وإيقا متقايسو إله عافيو يوسو دعيو إن شاء الله ما شاء الله maanta waxaa rabaa aan sheekeeyo ka hadlo nuujarna waan soo qortay inaan arrin aan ka sheekeyno arrin kale ma ahan arrinta waxaa waaye walaalkeen dayaxdal nuushe arrintiisa waxaa rabaa si logical maskax ahaan inaan u galno aan maxallaha aan bal wada fiirino dadka aan wada hadlaayo ma iga qaldan mise dayax baa qaldan fahantay kaamirada si fiican iskaguma jeed marka waxaan fiirinaynaa in wiilkan laga qaldan yahay inuu asaga qaldan yahay because sometimes Allah waclam qofka saxsan iyo qofka qaldan laakiin maxallaha scientific ahaan waan u fiirinaynaa science dhinaciisana waan ka fiirinaynaa maadaama qof wax qoraa aan jeclahay ama maxallaha waxyaalaha aan Google gareeyo aan fiirsado so waxaan ku wada hormarinaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim sallallahu alayhi wa sallam waxaan ku wada hormarinaynaa maxallaha ayay dhibaatada dhacday iyo dadka si wada dhibaatada istaqra arrinka dhacay maxallaha this week this week hadda mandate tahay last week waxaa dhacday dayaxdal nuush inuu ka qayb galay oo tagay shushu cabdalla arooskeeda walaasha shushu cabdalla halkaana hambali ugu dirayaa mabruuq rabaa inaan dhaho arooskaaga arooska lagu nasto lagu nagaado caruur laga helo khayr far badan Allah ku qas insha Allah as many kids as you want insha Allah farxad ba ilaahay idin siiya adii sayigaaga waa idin salaamaya shushu cabdalla wala shay dayaxna inta ka salaamaya walaalkii insha Allah I know he is in maxallaha grievance taasoo warqada soo qortay gaalada waxay dhahan grievance is a time of mourning ay dhahan qofka markuu qofka dhumo waxa waa tacsiya u taalay maxallaha xaajidiisa asagana every time aan u duceeyaa ilaahay samriimaha ka siiyo iyadana jannatu firdaws ka waraabiyo insha Allah kuwi aqaro ku kulman Allah ka dhigo so maxallaha wuxuu ka qayb galay gabadhaas shushu cabdalla arooskeedu ka qayb galay before uu ka qayb galay waxaa la shushu cabdalla baa waxay ka codsatay days before inay Snapchat soo galisay waxay ka codsatay waxay tiri hadduu dayax ka qayb gali lahaa arooskeyga maxallaha ayay farxad bay ii ahaan lahayd ayay tiri maxallaha ayay dadkan oo isku wada xiran yihiin isku wadan ay joogaan reer Muqdisho marka adoo isku wadan xataa aad joogo qofka ma aragtay dadka Soomaalida waa interconnected everybody have each other Snapchat ay ku soo qortay uu arkay I think after a couple of days habeenka arooskeeda you know qofkan qalbigiisa waxa ku socda ma fahantay inuu isdhaha laga yaabo gabadha walaasha ka farxi inta guri iska fadhin lahayd ma fahantay uu tagay arooskii ka haystay arooska markuu ka haystay kadib gabadh way farxada dadka waxay la noqotay arooska markay imaanayeen surprise waxayra idin daaraya I don't know if I have that video but waxayra fiirsanayna asagoo arooska joogo ka haysta ay gabadha say yaab oo noqotay markuu arooskeeda imaaday caaway habeenku waa soo bixin taamisana koolasha shushu oo ka soo jiifo waan fahantay saabka guriga iska faasho waxaan ka yeelay waxaan jeclaanahay inaan iska qaybo marka aan waxa ka soo baxay waa fisi waa walaasha macaan waxa ku leeyahay hambaliyo aad ku faraxsanahay ilaahay adiga reerkaaga baraaray oo barwaaqay ilaahay ma ku siiyo ma sanad badan oo ku noolaato adduunka kale waa ku barakeeyo aad ku faraxsanahay hambaliyo waxa wada taaganahay marka asxaabta aroosku ka qayb galay kadib maalintii ku xigto qolal badan laga wada soo furtay wiilkaas dad badan ceynayo dad badan dulminayo dad badan wax ka sheegayo iyo dad badan oo dhahayo wiilkan gabadha muu jecleen ka geeriyootay maxallaha ayo waxyaalo badan ka wada sheegayo ma fahantay sida la abrigeeda warqadan aan soo qortay maxallaha hadda Google haysta isticmaal kulli qof kasta telefoon oo haysta waxaad qortaa gelisaa
maxaa lahayay the 5 ways qofka biniaadanka scientifically ahaan dad baabaaray oo dakhtariin ah oo la fadhiistay qof ka geeriyooda ama qof waayay. maxaa lahay there is 5 ways qofka uu griefan u sameeyo ama maxaa lahayay uu mourning uu sameeyaa lahay. first waxaa lahay there is denial, waxa la dhaho qofka wuu diidayaa qof markuu geeriyo allah ma dhici karto qofkaas ma aniga dhintay ma dhici karto, waxaa la noqonaya aamin waa shock. the first time waxaa lahay qofka wuxuu dareemay xanaaq anger, wuxuu dhahayaa ilaahayo maxaa qofkaas aniga iga qaaday, alla aniga hadaa dhiman lahaa, ilaahayo maxaa saan igu samaysay. at sometimes gaalada xataa waxay sameeyaan ilaahay inuu jiro ilowaan astaghfirullah ilaahna ma tusay adi dhibaato maxaa lahay gaf badanay galaan dadka qaarkood oo diinta ku fogeen. bargaining waxaa waaye midka saddexaad bargaining allaha baryootim, waxaa dhahaysaa ilaahayo ii soo celi, ilaahayo maxaa iga qaaday qofkaas. qofka afaraad waxaa waaye depression baa ku dhaco, so depression uu dareemaa guri isku xiraa dad dhan lama hadlaayo. qofka shanaadna waxaa waaye this is the last stage ay dhahaan of grievance gaalada, this is stage ugu dambeeya waaye qofka wuxuu sameynaa acceptance waxa la dhaho intuu fadhiisto uu talaadiisa tukado ama ilaahay uu aaminsan yahay uu caabudo wuxuu dhahayaa ilaahayo qofkaas inaa jannada ku kulano, ilaahayo inaa maxaa lahayay jannada geey adig ducooyin uu aqrinayaa. so waxaa kaloo ku qoran however qofka biniaadanka these stages they are not followed in uniform ayaa lagu dhahayaa meeshaan headphoneka ayaa jagareynaysa of dealing with grief. some people waxaa lagu dhahayaa might not even experience these stages. wallahi google aa kasoo qoray waa kana waana google gareyn kartaa. waxaa weli dadka qaarkood they might not grieve maxaa lahayay in orderka oo stageskan 5 stage in order uma grief gareeyaan. so maxaa lahayay marka in the case of dayaxdal nuushe waxaa laga yaabaa maadaama horta muslimiinta badanaa anaga waxaa nahaynba aan galnaa maxaa lahayay 2 stages badanaa aan arkay dad oo bargaining sameeyla oo maxaa iga qaaday waxaas iyo acceptance labadaasay badanaa dadka muslimka ay sameeyaan when it comes to grieving maxaa lahayay marka qof waayaan. so maxaa lahayay badanaa because qof diinaa tahay iimaan lahaa tahay waa accept gareynsaa wuxuu ilaahay ku keenay ma fahantay. and gaalada iyagaa ku dhahay xataa sometimes dadka qaarkood they might not even experience maxaa lahayay stageskan oo dhanba maxaa lahayay inay ka gudbaanaa dhici karto. mida kaleetana dad waxaa jiro maxaa lahayay months after qof markay weeyaan oo ka dhinto ama years later xanuunka dareemo ooyo. aniga kaaga sheekeynayo 2025 aabahayga iga geeriyooday allah u naxariisto skin cancer ku dhacay. aabahayga maxaa lahayay markuu geeriyooday kadib adi bilow maalintii adeertii ay imaaday dad badan ay imaaday after maana ooynin dadka badan way isoo salaameen maana ooynin dadka dhan way yaaban yihiin maxaa deeqa helay I wasn't sad at all, I just felt normal, I felt like inuu nool yahay inuu dhinto xataa maana dareemin. saasaa jiro walaa inuu dhinto xataa ma ila noqonin. I still have his WhatsApp, I still have his numbers. laba beri ka hor aaba sheekeysanaba wada hadalnay waxay la noqotay wax unreal ah ma fahantay. saa u joogaaday bil kadib markaa aabihii hadalkiisa maqli waayay. maalin maalmaha kamid anoo film fiirsanaya halkaa iska fadhiyo gabari aabaheed oo aaba wanaagsan dhalay si uu gabadhiisa ugu dhaqmaayo markaa arkay ayaa aabahayga soo xasuustay. maalintaasoo dhan waxay celiyaa la waayay saa uu ooynayo waa ku seexday waa kusoo kaceen ma fahantay. marka maxaa lahayay inaa barataan cilmiga isku daya biniaadankana isku mid ma ahan. wiilkan dayax waxaa dhahay wiil aad u qalbi wanaagsan waaye muqdishona aad iyo aad loogu jecel yahay. qof walaalkaa ah maxaa uu la jeclaanay inuu depression stage u maro uu qolantu isku soo xiro ileen gabar yaraa ku xiran
gabadhiisa inuu farx geliyaa loo baahan yahay inuu strong parent u noqdo loo baahan yahay gabadhiisa inuu tuso sooma loo baahno inay hooyo la-aan ku dhacday inuu tuso sooma aan gabadhiisa inay nolosha saad ay noqonin wiilka hadaa shaqada kasoo xirtiin oo nolosha kasoo xirtiin kawaran gabadhaas yar yaa u dambeynaya ilaahay kasoko asagay haysataa marka waxaa idin dhihi lahaa ka xishooda ummadda islaamka wiilkaas dayaxdar nuushana waan salaamayaa samariima allah kasii gabadhiisana allah la koriyo insha allah أنا قبلي ذي الله يعافي عروتي الله يدايو عافي ما تمام كلين الله نور السياسة حتى وادي سلامية هذا الذي وحيا لها صوت إلا أنت فيديو وقصو كارتي فضلا وحكا عطنا هذا سبسكرايب أنا سبسكرايب إيتارتي لايك أند شير كومنت رأي ذا وأن جعلنا مقلو كومنت هو سوقر إن شاء الله وادي سلامية فيديو بسيطة كل منه خيرك ورجينا يا سلام قوحدي دوني ذي يا عدك على بحور كنت هذا